عافمات قبطو الله وزائديو انت عافمات قوني لا ياسي عافمات سبحانه عز وجل انت علاس وهاي علاس وساريا الله كقاو نيوم مرة بواحد وجعليا وقير أن يديس الله وسخره بإذن الله الرحمن أصحابتي نقاليها المسلمين أنها ما شاء الله مؤمنين حوائنا نسكود الدعينو dalkeena aan wada duceyno ummadda islaamka aan wada duceyno khaasatan soomaaliya meel kasta ay joogaan inaan wada duceyno maasha allah waalidiin badan oo waxaa jiro culays u saaran yahay inuu culays ilaahay ka qaado ama dhinaca caruurtooda ha noqdo ama dhinaca culays kale iska haya ha noqdo ama xanuuna ha noqdaano dhalinyaro badan oo waxaa jiro culays iska saaran yahay ama dhinaca shaqada ha noqoto ama dhinacii waxbarashadii ha noqoto dhalinyaro badan oo saas oo kale dhinac maaragtay xoogaa iskaga jiraan ilaahay soo jeedo ilaahay soo hanuuni maasha allah maxaa yeelay ducada markaas ilaahay subxaana casa wajal waa naga aqbalaa inaan duceyn markaas inaan duceyn inaan ka caajisan ummaddeena aan duceyn caruurteena aan duceyn walaalaheena aan duceyn meel kasta islaamka mu'miniintana aan duceyn intaas waxaa waaye insha allah biidnillahi raxmaan dhammaanteena inaan isku soo wada duceyn السلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته آدي هذا وفرح سنة هاي وأنا ما سنتين يرجلتينان ما شاء الله وعنا مهم كوحوية هاي مقعاويست الله مقعاوي معناها حريق سمعت بتاعتها قدومي علي عبد محمد علي شينو يوم ملكيس مقعاويست مقعاوي عبد القادر خوجي أو سفير وفدية صوماليا هذا عنده عالم كحتى ومعقول إن اللي سفير فيلان صومالي لأن يرى الصوماليين وحبذن كقبت شقديس يو هالكرنمديس يو وحيس أي موقان دومي علي عبد محمد ما شاء الله ما شاء الله معناها waxay kamid tahay hadaladii uu ku hadlay oo ahaa in kubadda cagta la horumariyo in kubadda cagta la fangeliyo la maalgashado dadka hay-adaha ku hadlay macnaha in loo soo jeesto ummadda Soomaalida macnaha qof kasta oo diyaar u ah inuu horumariyo kubadda cagta Soomaaliya ما شاء الله قدومي قوتي وحنا وذا أقنهاي أمرقاتي كوذا نهاي دلالة بدن أو بحشي وحيلا بدن أو قبتي ومدة الصومالية عروض الصومالية تقموينكا قبل لابا وحيلا بدن أنا عادي إهين أو كساعدين أكاديمي كست أو مقالة المتشوب أما مركز تكجيرو وسام واحد قوي من ملاها maxay faa'iido u leedahay marka magacaabistan loo magacaabay ergiga u fadhiyo qaarada Yurub badda cagta xiriirka samada badda cagta xaqiiqatan waa arin oo mas'uuliyadeeda leh oo aad u weyn maxay yeelay mas'uuliyadda xayiraadka haweenada ciyaar ma aha laakiin waxaad dareemaysaa ama aad arkaynaa in loogu talagalay Dumi Ali Abdi Maxamed وأن أرتيس أيضا يقدرتهاي وأن داعد رياضينا ندتك هوشة ونقول ديارك أو هذا الذي سيكون جيران إن قفل بو الصومالي أو الربو قبطان عكت إنو هرم ماريو إن أنك عمو فرع مصور دوينين مركب دمي قوشة ودروكناي وما دور لن هذا مركز تو مقعاوستيس ولا وصوهم بليين aad ayaa loogu farxay qofka daacadda qofka rabo horumar rabo qofka ay go'an tahay wuxuu raadinaa asagana qof la mid ah daacad oo raadinayo ay go'an tahay marka insha Allah waxaan leenahay asagana Allah u fududeeyo Allah u saqiro mas'uuliyadan la saaray xogaa isbedela imaanayo markaan sida hore ma jirayso
maxaa yeelay shaqooyinkan loo mas-uuliyadan loo dhiibay in laisku kormeero in laisku ogaado culays badanaa imaanayo waxaan rajeynaa insha allah sabarkii dulqaadkii uu sameynaa uu yeelinaya ka badan inuu yeeshaan rajeynaa abel macnaa finland keliyuu joogay oo wakiilka ahaa laakiin hadda qaaradda yurub wakiilka yahay maasha allah waa nin aad iyo aad active uga ah maasha allah aniga kabcan saalix ahaan waa kulan ani asiga maasha allah ciyaal yaryaro oo mashruuca oo youthka aniga ahayo team macalin saalix ahaa qalabowsi waxaa yeele ummadda oo academiga ay kamid ahaayeen oo soomaaliya ay kamid ahaayeen gobolka banaadir maasha allah ciyaalkan aad ay ugu farxeen ilaa hadda waa jiraan academigaas waa jiraan inta ani as arkin waxaa igu soo xoreeyeen dhalinyar ani ciyaalkeyga ahaayeen oo team sheekh saalax kamid ahaa oo dalkaas finland ku nool qaarkood norway joogaan qaarkood ingiriiska joogaan qaarkood macnaha dhalinyaradii oo waagii la ahaa oo garoonkan elaborka garoonka lasio oo markaan dambe garoonka sheekh saalax loo bixinayay dhalinyaro badan oo ani aan ka siin haddaan iska iloobi aad dhaheen macalinkeen waa inaa raadisaa asaa isoo raadiyey oo dhahay macalin saalax oo dhalinyaro badanaa arkay oo anigana aan la kulmay oo hataa waxay kamid yihiin qaarkooda ururka noo dhisan ee soccer ururka noo dhisan oo finland ka dhisan anigana macnaha aan guddoomiyaha u ahay ayay ku jiraan waxaa kamid ahaa yar ciyaaryahan ahaan jiray cabdiqaadir xaaji mutacayil dhihi jiray oo asigana saaxiibay ahaayeen runtii oo xataa markii oo isoo raadinayay oo igala hadalsiiyey macalin saalax oo ninkaasa ay kaa soo diray wiilkaada mutacayay marka maskaxdii xoogaa waa iska sii cuslaatay marka dadkii xoogaa waa la iska ilo laakiin mutacayil waa xasuusta maasha allah yar waa beri uu ahaa degmada waa beri soonaan buur dheere maasha allah inuu ahaa nin bidix iyo midig u ah aada u fiican marka anigana ciyaalka yaryariiska waa aruurin jiray oo magaalada muqdisho xaalad iskaga jira markaas iska cakiran meelo badan waa laga soo qaxay degmooyinka waa beri iyo xamarweyne xamar jijab iyo wadajir iyo dhinacaasaa loo badnaa qof kastoo meesha tababarka imaadan waxa waye maasha allah waa tababarka soo qaadan jiray waa siin jirnay marka maasha allah aad aan ugu faraxsannahay gudoomiye cabdiqaadir qooje waana u hambalyeynaa waana salaamayaa saas oo kale waxaan mahadcelinaya gudoomiye cali cabdi maxamed oo maanta runtii hadaladiisii ka dhabeeyey wallahi maasha allah gudoomiye cali cabdi maxamed inta aan ka aqaano qoli hadda ma barana aniga hadaladiisana inuu ka dhabeynaayo oo nin daacad waxaan ay ka go-an yihiin maasha allah hamigiisi targetkiisa iyo fishinkiisa aad ugu dheeraa 2009 2008 ayuu fishinkiisa ahaa in waddan cagta soomaaliya meel ay tagto asaagood wax la qaybsadaan maasha allah haddana waxaan dareemaynaa misadka baxaayo waddada lagu socdo meesha loo jeedo insha allah biidnillahi raxmaan koley intii nool inta dhimatana allaha u naxariista naqani inta noolna ilaahay subxana wa tacala naxariista u baahan yihin markasto laakiin fishinkiisa aragtidiisa targetkiisa daacadnimadiisa waxyaalaha uu hamigiisa ahaa wax hadda uu bilaabay ma aha marka maasha allah gudoomiye cali cabdi maxamed maasha allah biidnillahi raxmaan waxaan rajeynaynaa ilaahay idinkiisa waxyaalaha oo hamigaaga u ahaan jiray oo weligaadana aad u hamin jirtay in la gaari doono biidnillahi raxmaan hadda jidka waa haynaa maasha allah waana caddahay waxyaalaha badan hadda ku tiraabsatay waxyaalaha badan oo maaragtay aad ku hadashay ama macnaha oo waxaa la dhahay afkaartaadii ahayd oo in horumarinta kubadda cagta soomaaliya meel kasto beedi baadiyo qof walbo inuu u furan yahay maasha allah waa bilow fiican horumar leh boorinta ah in maaragtay ay ka qayb qaataan hay-adaha waa rajeynaynaa sida hadda hormuud oo kale maasha allah marka
aad iyo aad aad iyo aadaan leenahay gudoomiye cali cabdi maxamed iyo maamulkiisa maasha allah. ugu dambeyn gudoomiye cabdiqaadir khooje allah u fududeeyo asiga iyo qorshihiisa u degsan iyo waxa uu damacsan yahay ilaahay kheyr ha ugu dhigo mid anfaca ummadda soomaaliyeed, carruurta soomaaliyeed, dadka soomaaliyeed meel kasta beled ibaadiye allah ka dhigo. waxaan raacsanaa qodobkeyga labaad oo ahaa macnaha ciyaarihii maamulka goboleedyada. sida aan wada ognahay aan la wada socono waxaa diyaargarow aad loogu jiraa ciyaarihii maamul goboleedyada oo xaqiiqatan maamul goboleed kasta oo aad isku diyaarinayo ay ka go-an tahay sanadkan. maxaa yeelay ifaalaha muuqanayo oo waddanka sport macnaha guud ahaan waddanka sportigiisa aad iyo aad waa mid aad u sarreeyo oo dhinac walbana maaragtay rajo fiican iyo hami fiican laga leeyahay. guuldaro waa imaanaysaa, wax waa imaanaysaa, laakiin haddana wala quusinaa waa la soconaa. had guul bilaabday moo maasha allah, horumaraa muuqda moo, horumar markuu muuqdana maasha allah guul waa imaanay. marka maamul goboleedyada hadda waa soo wada xarooneyn badankooda. waxaa arkaysaa in ay ku xariisan yihiin magaalada muqdisho. tartankaasna lagu dhawaaqay 29 inuu furmaayo maasha allah. marka waan rajeynaynaa insha allah xiisaha hadda loo haayo inuu noqon doono mid oo dhab ah oo rumoobo insha allah billahi raxmaan, iyo sidii loogu talagalay oo maamulka ay ugu talagaleen insha allah inuu ku dhamaado insha allah. waan rajeynaynaa ciyaartooy fiican oo quality leh inay soo baxaan. ciyaaraha degmooyinka la qabanaayo, gobolada markii la qabanayo, tartan markii la qabanayo macnihiis maxaa waaye? sabab tartan loo qabanayo maxaa waaye? kuwa motivation ama dhiirigelin waxay u tahay dhalinyarada, dhiirigelin u tahay shacabka sportiga jecelna waxay u tahay xoogaa ay dhiirigelin u tahay markay arkaan ciyaarihii degmooyinka, markay arkaan ciyaarihii dugsiyada, markay arkaan ciyaarihii maxaa